78 sano guradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka booliska ayaa lagu qabtay xarunta dugsiga tababarka ee Generaalka Ahiye madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka gudoomiyaha golaha shacabka qaar kamid ah golaha wasiirada taliyaha ciidanka booliska taliyaha kumeel gaarka ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA gudoomiyaha gobolka Banaadir saraakiil iyo marti sharaf ayaa ka qayb galay munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay taliyaha ciidanka booliska Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa si kooban isu dul istaagay waxqabadkii ugu dambeeyay ee ciidanka booliska gaar ahaan sanadkii la soo dhaafay waxaanu wax ka qabanay hogaanka CID-da hogaanka gaadiidka hogaanka nabadgelyada wadooyinka hogaanka isgaarsiinta iyo hogaanka ciidanka oo aanu dib u habeyn ku sameynay waxaanu dhawaan abuurnay hogaan la yiraahdo hogaanta diinta iyo dhaqanka marka ay noo muuqatay inay dalka ay ku soo badanayaan mukhadaraad si loo daryeelo dhalinyaradeenna aan uga badbaadino dhibaatooyinka ay u geysanayaan waxaanu horay marinay oo tababar siinay ciidanka daraawiishta ciidanka barmadka iyo ciidamada gaarka ah ee howlgallada sameeya wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa bogaadiyay dadaalada ciidanka booliska ee sugidda amniga waxa uu hambalyo u diray guud ahaan ciidanka booliska maanta waa maalin ay tahay inaan hambalyo iyo tahniyad iyo bogaadin u soo jeedino booliska Soomaaliyeed waa xasuusinaynaa mooyee waan hubaa inay u taagan yihiin har iyo maalin oo qorraxdu ugu dhacayso roobku ugu da'ayo aynan u hoyanaynin u hargelin waa ka hortaga kooxda nabadiidka ah ee mar walba liddi ku ah danaha shacabka Soomaaliyeed gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in boolisku uu kaalin muhiim ah kaga jiro bulshada isla markaana waxa uu munaasabada ugu hambaliyay dhammaan ciidamada booliska marka hore waxaan u hambaliyaynayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed sanad guuradoodii 78 ee ka soo wareegtay asaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan ciidanka booliska iyo eheladooda waxaan leeyahay waxaad mudan tihiin in la idin hambaliyeeyo waxaan idin rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo iyo sanadkan sanadkiisa inaad ku gaartaan taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay hanaanka ciidanka booliska isagoo hambalyo u diray saraakiil xigeenada dableyda iyo guud ahaan ciidanka booliska madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in boolisku uu kaalin muhiim ah kaga jiro laamaha amniga anigu waxaan rabaa inaan taabto booliska Soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dawladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambeynta waa institutionkii waa hay'adii ugu horeysay oo la aasaasay waxbay ku sheegaysaa marka macnaheedu waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka ciidamada cirka iyo ciidamada badda iyo hay'adaha kale ee dawladda waxa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dawladnimada Soomaaliya loo diyaarinayay xorriyadeeda 20 December 1943 ayaa la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya waxaana taliyihii ugu horeeyay uu noqday Allah u naxariistay Generaal Maxamed Abshir Muuse Ayuub Cabdiraxiin warbaahinta qaranka Muqdisho